iyadoo lagu jiro maalintii labaad ee uu ololaha u lahaa xisbiga mucaaradka UCID ayaa maanta waxa degmooyinka Qorilugud Shanshaxade Taalabuur war Ibrahim Balle Calanle iyo Qoryaale ay u soo bixeen sidii ay cudud taageero ugu muujin lahaayeen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID waxaana kala qayb galay mas'uuliyiin ka socday xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID madaxda heer qaran iyo heer gobol waxaanay kala kulmayeen soo dhaweyn aad u ballaaran deegaan kasta oo ay cagta dhigaan ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaasha degmooyinka ee xisbiyada UCID xisbiga UCID waxaanay ka maqraati kaceen inay cod iyo cududba la garab taagayeen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka xisbigan cadaaladda iyo daryeelka UCID markaynu inagu nahay gobolka Buuhoodle gaar ahaan degmada Qorilugud musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka soo jeeda deegaankan musharaxa madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ka soo jeedaa deegaankeenan waa nin reer Bariya waa nin reer Buuhoodle waa magaceena ninkaasi waxaan ku leenahay xubnaha ugu sarsareeya xisbigan horta maanta u heelan yihiin meesha u taagan yihiin si midnimadooda iyo qadiyadooda u muujiyaan oo ugu muujiyaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka soomaynaa dooran soomaynaa raacin guushayaale yaynu raacnay soomaynaa raacin anigoo ah gudoomiyaha garabka haweenka Qoryaale waxaan soo dhaweynayaa wafdida ballaaran ee ka timi gobolka Togdheer ee xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee UCID waxaan leeyahay wafdida soo dhawaada degmadiina ku soo dhawaada UCID waxaan ku soo dhaweynayaa aad iyo aad wafdidan loo tibi aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dadkuna waxa weeye geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta ka socday xisbiga UCID oo socdaal ku mareeyay deegaamada hawdka gobolka Togdheer waxaanay uga mahadnaqeen bulshada deegaamadan isu soo baxa ballaaran ee u muujiyeen xisbiga mucaaradka UCID inay noqoto meelaha uu xisbiga UCID insha Allah tacaala ugu xoog badan yahay maalmaha soo socda talaabooyin iyo runtii waxaanu ka qaadi doonaa wax qabad baanu ka samayn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo waxaanu ballan qaadayna insha Allah tacaala degmadan Qoryaale inay noqoto maalmaha soo socda taageerayaasha ugu faraha badan leh cidda kullihiin inay xisbiga UCID noqoto imikana way muuqataa waa muujiseen xisbigii kulmiye waxa weeye xisbiga cadaaladda iyo daryeelku wuxuu tala saartay Allah war marka saddexdaasaynu kala dooranaynaay makaa Ilaahay tala saartay baynu dooranaa mise ka madax dhaqameedka aad iyo aad maasan xisbi ninka soo baxa uu la wareegayo Muuse Siilaanyo noqon kari maayo maxaa yeelay Muuse de maamulka hore uga soo qayb galay hadduu wax qabanayay laakiin waxa uu Siilaanyo qabtay kuma faani karo Muuse ee wuxuu yahay ayuu dadka iyo dalka u yahay qiimaha iyo qadarinta mudan noo soo dhaweeyay waan ognahay taariikhda ay ku leedahay horumarka dalka siyaasadda dalka iyo halgankii dalka loo soo maray degmada Qorilugud baahida ugu weyn ee aan tabaynaa waxay tahay deegaankan waxa ka jira wada xumaduna waa tabaday caafimaad darro inaydaan cusbitaal la helin saldhigyo wanaagsan aydaan helin carruurtiina ama dhalinyaradiina aanay helin garoomo ay ku ciyaaraan inta badan waxa iga muuqda wajiyadii dhalinyarada waayeelka iyo haweenka xisbiga UCID odhan mayno waxbaanu ballan qaadaynaa se waxaanu qaban doonaa shacabka waxay nagu doortay Maxamed Jookar warbaahinta Ariel TV Burco